kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee adduunyada oo idil oo aad kala socotaan bartan YouTube channelkan haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo idil inagoo markasta degdeg idinkugu soo gudbin doona iyo iyaga oo xaqiiqo ah. wararkan idin hayna waxaa ka mid ah waa maxay sababta fila Soomaaliya ilaa iyo hadda ay uga aamusan tahay dhacdadii 8 dhalinyarada ah lagu laayay ee deegaanka Gololey yiraahdo oo magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe hoos tagta ka dhacday. waxa kale oo aan idin soo gudbin doonaa intaynu ku guda jirno wararka walaaca ugu badan ee hadalhaynta siyaasadda waxa ay tahay doorashada iyo dib u dhaceeda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa dhammaantood waxa ay ka hadleen bal suuragalnimada doorashadaasi iyaga oo sheegay in waqtigeedu ay doorashada ku dhici doonto. cidda aamusan kaliya xilligan waa madaxweyne Farmaajo oo siyaasiyiintu ay ku eedeynayaan inuu yahay qofka kaliya ee gadaal ka riixaya in muddo kororsi la sameeyo, iyadoo beesha caalamkuna sidaas oo kale ay kasoo horjeesatay muddo kororsigaas ay damacsan tahay fila Soomaaliya ee lala rabo doorashada gaar ahaan madaxweynaha iyo baarlamaanka in waqtiga loo dheereeyo. balse arrintaas oo idil mas'uuliyiintii madaxweynaha ka hooseysay ama la sinaa ayaa diiday oo yiri doorashada waqtigeeda ayay ku dhici doontaa. qodobada kale waxaa ka mid ah Muuse Suudi Jalaxo oo ah senator aqalka sare ee Soomaaliya ka tirsan matalan maamul goboleedka Hirshabelle waxa uu sheegay in xasuuqii dhalinyarada ee deegaanka Gololey ay tahay arrin ay dowladdu wax ka ogtahay maadaama aysan ka hadlin. war caawa degdega oo hadda soo baxayna wuxuu sheegayaa in uu taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawaye Yuusuf Raage uu ku sheegay in aysanba ahayn ciddii laysay dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ee dhakhaatiirta ahaa ee ka howlgalaya deegaanka Gololey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay iyagu inay taasi ka dambeeyeen. waxa uu sheegay in baaritaan horudhaca ay sameeyeen natiijana ay hayaan, inkastoo mar dambe uu ka cudur daartay in natiijo ay hayaan. wararka kale waxaan idiin soo gudbin doonaa halkii uu ku dambeeyay khilaafkii u dhexeeyay madaxda maamul goboleedka Puntland ee kala ah Karaash madaxweyne ku-xigeenka iyo Dani oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo khilaafkoodu meel sare gaaray. qodobadaasi intaynu ku guda jirna barnaamijkan waxay noogu soo kordha oo ay qayb ka tahay falanqaynta doorashada iyo waxyaabaha ay ka yiraahdeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaan idiin soo gudbin doonaa. kusoo dhawaada iyaga oo faahfaahsan. waa hagaag intaynu warka ku guda gelin waxaan ka codsanaynaa inaad channelkeena subscribe tiraahdo si aad u hesho warar lagu kalsoon yahay oo xaqiiqda ah. intaas kadib waxaan ku bilaabayaa wararkeena inaan idiin soo gudbino dhacdada hadalhaynta badan abuurtay waxa ay tahay arrinka doorashada Soomaaliya. mas'uuliyiinta kale ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre, afhayeenka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo afhayeenka golaha aqalka sare oo lagu magacaabo Cabdi Xaashi Cabdilaahi, labadooduba waxay sheegeen in markasta ay diyaar u yihiin sida ay yiraahdeen in doorashada waqtigeeda lagu qabto oo aan wax dib u dhacahi imaanin, iyagoo dhanka kalena tilmaamay in wax ku tiri ku teena oo sal iyo raad toona lahayn ay tahay warka lagu sheegay in doorashada muddo kororsi loo sameyn doono. laakiin siyaasiyiintu waxa ay seefta gasha kala baxeen kadib markii warbixintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee uu la wadaagi lahaa golaha baarlamaanka dib loo dhigay, taasna ay ku muujiyeen inay tahay gogol xaar hor leh oo lala rabo in doorashada waqti hor leh lagu darsado weeyaane. walaaca ugu badan arrintaasi ayuu ka taagan yahay ee doorashada ah xildhibaan Maxamuud Bene oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya kuna sugan Minneapolis oo wadanka Mareykanka ah waxa uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda uu heshiis dhex marayo gaar ahaan afhayeenka golahaasi kaas oo ku aadan in la rabo in muddo kororsi la sameeyo, iyadoo ilaa iyo iminkana aysan jirin wax cad oo tallaabadaasi loo qaaday marka loo eego qaabka ay wax u socdaan iyo guud ahaanba xaaladdu sida ay tahay weeyaane. Bene waxa uu yiri baarlamaanka sababta uu u baajiyay in la dhageysto warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa ay tahay in ay taasi muujinayso bal heerka ay taagan tahay sida uu yiri weeyaane isku dayga xukuumaddu ay la rabto in muddo kororsi ay u sameysto gaar ahaan fila Soomaaliya in muddo kororsi ay u sameysato arrinka doorashada. madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isaguna mar kale seefta gasha kala baxay waxa uu yiri ma aqbalayno oo mas'uuliyadeeda waxa qaadaya haddii doorashada dib loo dhigo. madaxweyne Farmaajo warkiisu waxa uu noqday mid hadalhayn badan abuuray isagoo sheegay in madasha xisbiyada qaran ee uu isagu gudoomiyaha u yahay iyo guud ahaan xisbiyada Soomaaliyeed aysan aqbali doonin in doorashada dib loo dhigo, inkastoo ay jiraan dhanka kale oo aan la dafiri karin inay jiraan xisbiyo muxaafid ah oo xukuumadda si weyn u taageersan isla markaana lagu xantaba inay yihiin kuwo lacag ka qaata xukuumadda, sidaa daraadeedna taasi ay keenayso taageerada ay muujinayaan weeyaane.
taas bedelkeeda iyadoo warkaasi mid la midih uu kasoo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qudhiisana lagu sheegay in doorashadii 2016 la qabanayay bilo uu ku daray inkastoo farsamo uu ku sheegay isaguna waxa uu tilmaamay in uusan aqbali doonin in doorashada dib loo dhigo walow ay jiraan warar badan oo sheegaya walaacaasi doorasho laga qabo nooca doorashada dalka ka dhacaysa iyo inaan weli jadwalkii la soo gudbin iyo nooca ay noqon doonto iyo guud ahaanba warbixintii guddiga madax banaanida doorashooyinka qaranka oo dib loo dhigay iyo arrimo badan oo isbiirsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad dheer jeediyey waxa uu sheegay in wax laga xumaada ay tahay in xukuumaddu iyadoo 2020 la marayo maanta ay ku fikirto waa gaar ahaan fila Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo sida uu yiri in waqtigan muddo kororsi ay ku fikiraan iyadoo dunidu ay ku tartamayso dimuqraadiyadda iyo xukun kala wareega iyadoo si xaraga leh uu sheegay inuu u wareejiyay markii uu xilka u wareejinayay wayaane oo uu madaxweyne Farmaajo madaxtooyada ku soo dhaweeyay markii la doortay sida daraadeed madaxweynuhu waxa uu yiri waxaan xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed habeenkii la iga guuleystay anigoo ilaalinaya sarreynta sharciga ee aan la iga hubadnayn ayaan ogolaaday inaan wareejiyo mas'uuliyadda ummadda Soomaaliyeed iyo dalkanba sida daraadeedna ma aqbalayo shakhsiyan iyo ka xisbi ahaanba in madaxda hadda joogta ay muddo kororsi sameeyaan wayaane waxaana uu warkaasi ku yiri kadib markii uu soo baxay tuhun ah in doorashada waqtigeeda dib looga dhigayo oo ay tahay wax abaabulan oo lagu sheegay arrin muujinaysa sida ay madaxda dowladda gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo fila Soomaaliya ay u rabto in doorashada waqtigeeda la dheereeyo weeyaan hogaamiyaha mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qudhiisu waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay iminka damacsan tahay sida uu xogo badan oo uu helay uu ku sheegay wayaane in doorashada dib loo dhigo dhammaantood mucaaradku waxay sheegayaan in doorashada dib u dhaceeda ay fila Soomaaliya rabto iminka oo ay iyagu doonayaanba waa sida uu yiri in waqtiga doorashada la dheereeyo ama uu garan jiitan la geliyo sidaas daraadeedna aysan suuragal ahayn in doorashada dib loo dhigo sida uu warka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu dhanka kale tilmaamay oo golaha baarlamaanka labadiisa aqalba u jeediyay oo uu yiri ha lagu daro golaha murtida iyo madadaalada waxa uuna ku fasiray arrinkaasi inuu ka wado in la rabo in lagu shiriyo tiyaatarka qaranka oo madaxweynuhu sida uu tilmaamay uu isku aamini waayay inuu tago xarunta lagu magacaabay General Kaahiya oo ciidanka booliska Soomaaliyeed xarumihiisa waaweyn qayb ka ah sida daraadeed waxa uu sheegay in baarlamaan matalaad sax maanta iyo doorkiisiba qaato uusan jirin sidaas daraadeedna uu wasoo ku talinayo in golaha murtida iyo madadaalada lagu daro waa sida uu yiri beesha caalamka waxa ay iyaguna qabaan walaac xoog leh oo ku aadan arrinka doorashooyinka Soomaaliya iyagoo dhanka kalena tilmaamay in aad uga xun yihiin qaabka ilaa hadda wax u socdaan oo ah in laga hadlin nooca doorashada dalka ka dhacaysa in maamul goboleedyada la heshiinin inaan amnigii doorashada ay ku dhici lahayd wadadiisa la heenin iyo inaan loo diyaar garoobin guud ahaanba marka la eego doorasho wadanka ka dhacda wararkaasi doorashada ayaa ugu waaweynaa qodobadii aan kaga soo gudbinaynay arrinka la xiriira bal doorashadaas iyo nooceeda oo walaaca ugu xoogan ama ugu badani uu yahay warbaahintu waxay su'aal badan ka keentay waa maxay sababta madaxweyne Farmaajo ilaa hadda uga aamusan yahay xasuuqii ka dhacay deegaanka Gololey gobolka Shabeellaha Dhexe weeyaan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ilaa hadda ka hadlin dilkii foosha xumaa ee maalmo ka hor loogu geystay deegaanka Gololey ee magaalada Balcad degmada Balcad hoostaga weeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo lagu xasuuqay sida xogo warbaahintu ay heshay ay tilmaamayaan oo meydadkoodana lagu muujiyay sawirro laga soo qaaday dhalinyaradu waxay ahaayeen kuwo aqoon-yahano ah oo xirfad leh isla markaana ka shaqaynayay goob caafimaad oo ku taala deegaanka Gololey oo dadka u adeegtay deegaano badan oo deegaankaasi uu hoos yimaado madaxweynaha oo ku sugan Muqdisho isla markaana ay gaartay maqalka waa war maqalka xasuuqii ka dhacay deegaankaasi ayaa ilaa hadda dareenkiisa la wadaagin shacabka waxaana jira eedeymo loo soo jeedinayo oo soo baxayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si degdeg ah uga tacsiiyay dhibaatooyinka soo gaara dadka kale ee muwaadiniintooda waa dalalka kale ee muwaadiniintoodu ay waxyeeladu gaarto ayaa wax culays ah wax culusba ka soo qaadin dilwadareedka ka dhacay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi oo loo geystay dhalinyaro jaamiciyiin ah oo xirfad lahaa madaxweynaha oo ka tacsiyen jiray shilal diyaaradeed iyo dad badda ku dhintay oo dowlado shisheeye ka soo jeeda ayaa ilaa hadda waxa uusan ka hadlin dhakhaatiirtii la laayay sida ay warbaahintu ay ogaatay waxaana sidaas yiri mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdi Axmed Xuseen
waxa uu warkiisa isagoo soo wata oo warka laga soo xigtay aqoonyahankaasi lagu magacaabo cabdi axmed xuseen uu kusii yiri waxa ay ku tusinaysaa wuxuu yiri waxay ku tusaysaa qalbi iyo damqasho la'aanta madaxweynaha iyo sida ay agtiisa qiimo uga lahayn dhiigga shacabka Soomaaliyeed waayo dilkan ma aha dil caadi ah waxa uu ahaa dad bulsho qiimo weyn ugu fadhiyay oo la xasuuqay ayuu yiri aqoonyahanka warramay waxa kale oo warkiisa sii raaciyay waxa macquul ah in dadku haddii ay dib ku dhici lahaa waa haddii ay macquul ahaan lahayd dib ku dhici lahayd dadka Soomaaliyeed qaarkood oo madaxweynuhu degdeg uga falcelin lahaa laakiin waxa uu su'aal geliyay deegaanka iyo dadka jooga sida uu aqoonyahankaasi ku warramay weeyaane sidoo kale ururada bulshada rayidka ee gobolka Banaadir iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan ilaa iyo hadda la wadaagin dareenkooda dadka ku nool degmada Balcad iyo deegaano hoos yimaada oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo laga xasuuqay dadkii deegaanka waxtarka u lahaa ee waxbarashada kadib uga shaqeynayay dhanka caafimaadka weeyaane waxa wax laga xumaada ah in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba aysan ilaa hadda ka hadlin musiibadii gololey ee degmada Balcad ayuu yiri Cismaan Muxiidiin shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka oo warbaahinta isaguna la hadlay waxa ay sidoo kale saraakiisha fila Soomaaliya ka gaabsadeen in madaxweynaha laga weydiiyay iyaga waa maxay sababta madaxweynuhu ilaa hadda eedeymaha loo soo jeediyay iyo dhacdadas buuga aamusan yahay laakiin jawaab inay ka bixiyaan way ka gaabsadeen guddiyo ka kala socda dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle ayaa ku hoyanaya ama maantaba tegayba deegaankaasi iyadoo ay la kulmeen dadka deegaanka gololey waxa uuna dul hoganaya murugo iyo urkutaalo badan oo la xiriirta dadkaasi inay waayeen dad badan oo caafimaadka deegaanka muhiim u ahaa iyo xaalku sida uu u socdo markaasi muuse suudi yelxo oo ah senator aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan lagana soo doorto deegaanka waa deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii lagu dilay dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahay mid qorsheysan oo dowladda Soomaaliya laga rabo jawaab laakiin taas bedelkeeda war ah waxa sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage waxa uuna yiri haba yaraatee ma jirto mana dhici karto in ciidanku ay ku lug leeyihiin deegaankaas wixii ka dhacay oo ah xasuuqa isagoo dhanka kalena yiri waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed in ay isdejiyaan oo aan baaritaan wadno isla markaana natiijada baaritaankaas aan usoo gudbin doono wixii ka soo kordha weeyaan wararka kale ee aan idin hayno waxaa ka mid ah khilaafkii ugu xooga badnaa ayaa weli ka taagan dowlad goboleedka Puntland waa magaalooyinkiisa kala duwan iyadoo khilaafku uu gaaray in madaxweyne ku-xigeenku uusan soo shaqo tagin oo gurigiisa iska joogo isla markaana uu sheegay inuu isku aamini waayo amniga madaxtooyada kadib markii xilalka laga qaaday taliye ku-xigeenkii madaxtooyadaasi oo isagoo ay qaraabo dhow ahaayeen taas bedelkeedana lagu bedelay taliye ku-xigeen cusub oo ay qaraabo yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka waa Siciid Cabdilaahi Dani waxaana dhanka kale uu sheegay in madaxtooyada amnigeeda iminka ay la wareegeen qolo gaara sida uu yiri weeyaane BBC goor hore wareysatay waxa uu ka sheegay hadal hayn badan abuuray oo ah aniga iyo madaxweyne ku-xigeenku waa aniga iyo madaxweynuhu isma salaano ayuu yiri Crash taas bedelkeeda dhowr wareysi oo uu bixiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu ku sheegay in go'aanada maamulkaasi inuu gaaro isagu uu maarta sharciyadu siinayso warka uu ku haysto Axmed Crash oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland waxa uu yahay mid kaas ka soo horjeeda oo ah inuu leeyahay talada deegaanka iyo maamulka waxba la igama siin waxaana dhowr jeer ka soo horjeestay magacaabis uu sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani Puntland xaaladeeda ayaa iminka maraysa xaalad qiiq ah iyadoo lagu soo warramayo in shaqadii ay gabaabsi ku jirto oo sidii hore aan loo shaqeyn iminka marka loo eego xaaladdu sida ay tahay iyo deegaanka shaqadii baahidii uu qabay oo aan la soo hadal qaadin guud ahaan daawadayaal inta aan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay ee adduunyada oo idil oo aad kala socoteen barteeda YouTube channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee adduunyada oo idil inagoo markastana kuusoo gudbin doono weeyaane wararkii ugu dambeeyay caalamka oo idil iyagoo degdeg ah sidaas iyo nabadgelyo subscribe tahay hilmaamin mahadsanid